anigoo ku hadlaya afkiisa iyo magaciisa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu safar ugu baxayo dalka Turkiga socdaalkaasi ama safarkaasi oo qaadan doona haddii aan la yiraahdo muddo usbuuca ujeedada socdaalku waa private ama waa khaas maalin bay ka kordhi kartaa ama maalin bay ka yaran kartaa inuu muddo 7 cisho aw ka baxo shaqadaasi oo dhinac uga joogsado waana wax caadi ah oo ay sameeyaan madaxweynayaasha adduunka iyo hogaamiyayaasha adduunku inay holiday ama fasax gaaban meel ugu baxaan muddo gaaban oo wax iska caadi ah oo ay sameeyaan tan madaxweynuhuna taasi oo kale weeyaan waxbana kama jiraan haba yaraatee oo waxaan sal lahayn inuu madaxweynuhu maagan yahay muddo kordhin sababta uu saxaafadda ula hadli waayay dadka qaarna waxa bay hadal hayaan madaxweynuhu inay la soo diristay xaalad caafimaad oo uu doonayo inuu tago wadanka Turkiga muddo 7 arrimaha maxaad nooga sheegi karaysaa anigu waxaan kuu sheegayaa waxaan kuu sheegay hore ma kuu sheegayaa waxaan anigu sheegin ma sheegi karo madaxweynuhu holiday iyo muxuuha fasax madaxweynayaasha kale dunida ay u baxaan ayuu u baxayaa intaan madaxweynaha soo gaadhay inaanu ogahayna muxuuha waa inta nasad madaxweynuhu u baxo xilliyo kaleba way jiri kareen xarimo badan baa xaaladda dalka ka taagan dekadaad og tahay doorashooyinkii baad og tahay marka arrinta xilligan ku soo beegtay bay dad badan isweydiin karaan marka maxaa inaad caddaysaan diidan madaxweynuhu hawlaha sugaya waa hawlaha uu qabto ka shaqeeya madaxweynuhu hawlaha madaxweynaha qabiye ka tahay la oran karaa ma jiro afayeen safarkan madaxweynuhu safaradii hore inuu ka duwan yahay moodaa waxoogaa ciidankii uu madaxweynuhu salaanta ka qaadan jiray maxaa ku jabnaan lahaa haddii madaxweynuhu uu saxaafadda la hadlo si aan loo tuhmin inay arrimo kale jiraan de marka maanigaad leedahay muxuu ahaa maxaa lagu magacaabay shaqadan lagu siiyay inaad madaxweynaha afayeen u noqoto maya ciidankii salaanta uu qaadan jiray horta anu ciidan ka hadli maayo laakiin muxuu ahaa waxaanu ka hadlayaa madaxweynayaasha dunidu iyaguna way hadlaan marar badanna waxa hadla afayeenadooda aniguna taas ma kamid